meeshaan u soconaan ka warrabayna hadduu ilaahay yidhaahdo mudane madaxweyne kusimaha guddoomiyaha golaha shacabka ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha maxkamadda sare saaxiibkayga qaaliga ah guddoomiyaheenii hore mudane maxamed sheekh cusmaan jawaali oo ah xildhibaan qaran xildhibaannimaduna wax yar ma aha waxa weeye inteennaa meesha wada joogta uun guddoomiyuhu waa un xildhibaan la yaro weyneeyey weeye oo la yidhi shirka noo guddoomi xoogaha yaroo xuquuq ahna waa la jirtaa markaa guddoomiyaheena xuquuqda yareedna u weyn mayno xildhibaanadiisina wuu dhex joogaa si sharaf leh oo wanaagsan oo uu contributionkiisa uu ku lahaan doono ayuuna insha allahu tacaala noogu dhex yeelanayaa xilku waa meerto ummadda soomaaliyeed waxaa u socda cashar baa u socda waxaa la barayaa dimuqraadiyaddu waxay tahay oo kursi inta layska fadhiisto sidii boqortooyooyinkii carabta in layska fadhiyaa inaysan dow ahayn ummaddana u wanaagsanayn dalkuna uusan qof keliya u baahnayn ee uu u baahan yahay ummadda oo dhan iyo inay iskaashato iyo inay wax wada qabsato qof walboo inaga mid ah waxa weeye darajo sare waa uu u qalmaa inta uu ilaahay u qoro ayuuna joogayaa inteenna meeshaa fadhidaa waxaa xaqiiq ah inaanu shacab ku noqon doonno mar walba isagoo weli shacab ma noqonina weli waa xildhibaan laakiinse hadda dhow weeye 2020 waa dhowda sidaanu u shaqaysanaana laga yaabaa inaanu usoo noqonno guddoomiyaheenna waxa weeye maxamed sheekh cusmaan jawaari ummadda soomaaliyeed xaqii ay ku lahayd wuu guday shaqadii ay ka rabtayna wuu usoo qabtay haddana waxa weeye inta dhiman waa uu nala sii dhammaystirayaa insha allahu tacaala waxaanu u soconnaa safar dheer baanu u soconnaa walaasheenna bruma waxay tiri horaa loo soconayaa markaa horeynu u wada soconaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo intii waa mahadsan tahay hadda waxa weeye waxaanu ku jirnaa boogadhayis inaynu iswada cafinno walaalkeen maanta wuxuu noo sheegay in uu dhammaanteenna cafiyey idinkana wuxuu idinka dalbaday inaad cafisaan horta ma cafiseen idama maqline guddoomiye waa maqlaysaa waxa weeye walaalaha saaxiibadaa oo xilka awalna kuu dhiibtay haddana aada si sharaf leh aada adigu ugu soo celisay waxa weeye wixiina kala gaarayna waxa weeye halkaasi ku baxday munaasabadda muhiimaddeedana waxa weeye madaxweynaha ayaa dhigay annagu wixii uu guddoomiyuhu noo sheegi lahaa maanta ayuu runtii noo sheegay annaguna inaanu wixii uu noo soo qabtayna aan uga mahad celinno mudane guddoomiye mahadsanid dalkaagaad u qabatay hay-adihii iyo institutionkii golaha shacabka oo ah hay-adda ugu maamul wanaagsan uguna heer sarraysa dowladda federaalka ah waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay innagoo dhan baa wada dhisnay laakiinse waxaa hoggaankiisa lagu soo dhisay oo sharaftaas iska leh waxa weeye walaalkeen maxamed sheekh cusmaan jawaari oo aada iyo aada ugu mahadsan cidda aanu hadda dooranno oo hadduu ilaahay yidhaahdo 15 beri xoogaha campaign aa dhici doone marka uu dhaco kabacdi qofka aan dooranno ayaana ilaahay ka rajaynaynaa inuu barteeda kasii wado bahashu meelay halka lasoo gaadhsiiyey ay hoos uga dhici karta ma joogto runtii institution adag baa dhismay dowladnimadeennii waxa weeye hanaqaad bay hadda ku sugan tahay dhammaystir bay nooga baahan tahay kulligeen waa isku wada marxabaynaynaa waad ku wada mahadsan tihiin qof walba ay doorku ka qaatay yacni dhismaha dowladnimada waxa weeye aada iyo aad baad u mahadsan tihiin aniguna kolley waxa weeye dagaalka dhinacu baan uga jire anigana hallay cafiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu